بسم الله الرحمن الرحيم kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada warbaahinta durdurka wararka waxaan idiin soo gudbin doonaa xogihii ugu dambeeyay xaaladda deegaanada koonfur galbeed Soomaaliya Cabdicasiis Laftagareen oo si rasmi ah u gaaray magaalada Baydhabo isla markaana ku guuleystay in xogta safarkiisa uu ka ilaashado dowladda federaalka Soomaaliya sidoo kale maxay tahay guulaha waaweyn ee ilaa hadda uu gaaray Cabdicasiis Laftagareen tan iyo intii uu soo shaabaxay khilaafka u dhaxeeya dowladda federaalka Soomaaliya iyo sidoo kale koonfur galbeed sidoo kale waxaan idiin soo gudbin doonaa maamulka koonfur galbeed oo markaasi ciidamada isbedel doonka ah ee ku sugan magaalada Buurhakaba ku eedeeyay in ay markaasi yihiin ciidamo markaasi al-shabaab ah oo dharka loo bedelay haddaba qodobadaasi kuwa kale faahfaahintooda ayaan idiin soo gudbin doonaa iyo hadalka wasiirka balse marka koowaad soo dhawow muuqaalkan la gare sidoo kalena sii share gare si dad badan xogteena ay u gaarto saacadihii ugu dambeeyay waxaa cirka isku shareeray khilaafka u dhaxeeya dowladda federaalka Soomaaliya iyo sidoo kale maamulka koonfur galbeed Soomaaliya kaasoo gaaray heer koonfur galbeed ay markaasi xiriirka ugu jirto dowladda federaalka kuna eedeyso in ay qayb ka tahay rabshado iyo sidoo kale falal amniga lid ku ah oo ka dhacay saacadihii la soo dhaafay iyo maalmihii u dambeeyay deegaanada koonfur galbeed ee Soomaaliya Laftagareen ayaa ku guuleystay in markaasi xiriirka Itoobiya kala dhaxeeyo uu wanaajiyo iyagoo markaasi gaaray isfaham weyn kaasoo sababay ugu dambeyn in Itoobiya ay markaasi amar ka soo saarto in qori aan ahayn qoriga koonfur galbeed ee nidaamka Cabdicasiis Laftagareen in aan lagu arki karin goobaha markaasi iyaga ay ku sugan yihiin wasiirka wasaaradda amniga koonfur galbeed Xasan Cabduqaadir Maxamed oo ka hadlayay xaaladda ka taagan degmada Buurhakaba ee gobolka ayaa markaasi waxa uu faahfaahin ka bixiyay wararka la xiriira kooxo hubeysan oo lagu arkay degmadaas kuna dhawaaqay inay yihiin isbedel doonka koonfur galbeed Soomaaliya isagoona ku eedeeyay in ay yihiin raggaas rag al-shabaab ka tirsan isla markaana xiriir dowlo leh walageek fadana in warbixin yar untu ku biino runtii dadka reer koonfur galbeed wali fadana inuu sheegno warbixin yar oo la xiriirto maleeshiyaadkan la ka tababaraa deegaanadan koonfur galbeed ama la ka qalabeeyahayo iyo xaaladiyo muddooyinkii hata la dhaafay wali wadnay baaris dheer dadka walaagan wado iyo ujeedka la kuleeyay qalabkan la siiyahay meelaha marsiyahayo iyo naftirsho wali ay baaristaas wadnay muddooyinkii hata la dhaafay wali runtii ogaanay oo xaqiiqsanay baaristaanona ka ogaanay maleeshiyaadka in qibkumada horta shabaabeen oo shabaabka dharka laha ku dhakay hubka laha ku dhakay sadeegaanada lanka dhibaatayo lan ar dhubow dad hataha ku baahiyo la aro maleeshiyada la ara dadka laha ka dhaxgeliyo marka si guud qeybtaas horta waliba waa qeyb una xaqiijinayo saasoo kale wali xaqiijinay wasiirada heer federaal oo wasiir Xasan Eelay iyo wasiir jaamac kumadeen in iyo xildhibaan Fawziyo in yoon runtii xiriir qoto dheer la soo biyaan shabaab dhaqaalana siiyeen sa hubkaasay la gadaaw shabaabka la handhaha marsiyo maleeshiyaadka meelooyo ka socdaayana shabaabka access lansiyo yana arrimo oo una baaristi una wadna ka ogaanaya kumadata si guudna wali cilaaqaad weyn la soo biyana in maleeshiyaadkaas shabaabka la dhaxdejiyo deegaanada shabaabka rooga ku howlgalaan dadka shacabka ku dhibaatayaan dhaqankoona nagada dhaqankii shabaabka oo kale in nagada dadka reer koonfur galbeed marka wali fadana maadaama xaaladii saasan cadaatay intuu ku degno lan kasta oo la tacaamulo maleeshiyaadkaas shabaabka ee wali limid lan shabaab la tacaamulay limiday yoona wali cadaatay in shabaabkii dhaqankii shayna weeldadaan shabaabkiina ka dhaxjaro howlgalada iyo suubiyaagna howlgalada shabaabka ay mas'uuliyiinta heer federaal oo deegaanadan ha ku jeedaan oo hata nasiib daro hata shabaab la xiriirano yoona dhaqaale siiyahayaan maleeshiyaad lan abuuro hubkii la hanka gudbiyo oo deegaanadii tiyo lan ka dhibaatayo yoona eedan ku xogno waqti sheelato wala xisaabtamo doon ilaahay idin shay laakiin wali dadka reer koonfur galbeed cadeeyana meel kasiyo rogan arintaas in si xaqiiq ah lan ogaaday deegaanadan oo hukuumadda degmada Buurhakaba wali ogtiina in lama hamin sadhamin baray lan amiir oo magaashay la haayo la goradaaw in lama hamin sadhamin baray iyo kulamo dadkii horey maamulka meelan rooga jaray kulamo iyo kala weeldadaan deegaanadaas meelo kumada oo xogoosho dhameystirna la haayo wali cadeyntii la halo kore oo reer koonfur galbeedna lan sheego kore dhaqaalaha shabaabka la siixita meeliyo marsiyeen armoogaso baaris dheer saraakiisha amniga ka soo biyaan kadib wali fadaana inuna si waadaxayn cadeyno maadaama dowladda federaalka armoogasay runtii eed luganka waalati wali isla haynay madaxweynaha qaranka in uu mutanka sheegay inuu soo dagaalamo al-shabaab
inuu safadaawo in al-shabaab la ciribtiro cagsi shee wasiiradiisna wali ku shaqeeyaan in shabaabkii la hormariyo in shabaabkii dhaqaale la siiyo in shabaabkii hadda maleeshiyaad cusub la suubiyo in hub la siiyo shabaabkii oo hubkii dowladii lagu faa'iideeyo iyo cagsi sheeyana ku shaqeeyaan marka reer koonfur galbeed wali lana haliska taladoy amnigeenu uu gacantanka jara wal kale hatu uu sugahayno oo una federaalka ku sugahayno ma jaro wali lana ciidamada qalabka sida koonfur galbeed qeybo shil gadiisan oo geesiyaasha dalkan horta bisin difaacasan wal kasta oo amnigii koonfur galbeed khatarka eena wali sanfaraanay in gacan bareel ka qabado xaaladaas guudna saasaysan ogaatan hoobisan lan ko shalaysan kasaasan magaaladan roogay oo ama askarsiin lahaay ama dhalinyaraha ay magaaladan isku roogay oo nimankaas kabiirigay wali nagday al-shabaabna fursad faylaya ku dhaahaleen oo runtii mas'uuliyiintaas abuurtay marka dadkaana wali fadaanay in uu warbixintaas guud siino waqti sheelata walaay cadeeme ana walhan bandhig doona ilaahay in shay salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu khilaafka u dhexeeya dowladda federaalka Soomaaliya iyo koonfur galbeed ayaa haatan gaaray meeshii ugu sareysay xilli dhinacyada markaasi ay isweydaarsanayaan ficilo markaasi midba midka kale lid ku ah waxaana maalmaha ina soo aadan iyo saacadaha ugu soo fool la filayaa in dhinacyadu ay ka soo kala baxaan warar markaasi iyo go'aano aad u culus oo saameyn ku yeelan kara guud ahaan deegaanka haddana la soo gaartay dhamaadka muuqaalkan fadlan soo dhow muuqaalkan like sidoo kalena sii share gareed si dad badan xogteena ay u gaarto